Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida qaybta lixdanaad Yagig aan fadheetay dhageysiga garmaqalka eedeysanayaasha oo diirow ilaa 3 askari oo ku tirsan guutada sideedaad ee qaybta lixdanaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ilaahay naxariista marxuum Liibaan Maxamed Abdi Hayle oo taariikhda markii Hayti 14 bili 10 2024 uu soo kirishbooy ka hay baabuur iyo lata shirkadda Hormuud waliba lagu tooday kontaroolka maamulka ee duleedka magaalada Baydhabo. dable xooga Yacquub Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Yacquub Dhegey waliba heer ilaalinta ka eedeyna intuu si bareere indili Ilaahay naxariista marxuum Liibaan Maxamed Abdi Hayle oo hay kirishbooy usan shaqeeyay shirkadda Hormuud meele eedeysanayaasha shalay dable xooga Ibraahim Macalin Xasan Manuur iyo dable xooga Xasan Cali Xuseen Cabdi oo yoona qeyb ku haayeen intii habadiyo ku fureen baabuurka uu saarnay Ilaahay naxariista marxuum Liibaan Maxamed Abdi Hayle 4 bilan 2024 waliba maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad aan fadheetay dhageysiga eedeysanayaashan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad Sheekh Aadan Abuukar Maxamed yaa ku sugay intuu saara go'aanka eedeysanayaashan Masla Salam Mohamed Masla Raage warbaahinta SN Radio Baydhabo.